ilaahay fadligii ciidamada dawladdu waxay gacanta ku hayaan dhammaan degmada guriceel waxaa u suurto gashay inay gacanta ku soo dhigaan maxaabiis fara badan oo ahay dadkii ka dagaalamayay qaybo ka mida degmada guriceel isla markaasna carqaladaynaya nabaddii ka jirtay degmada waxaa loola dhaqmay si wanaagsan ciidamaduna waxay u taxaabeen xabsiyada waxaan rabaa inaan baaq u diro dadka reer guriceel ee ku sugan magaalada dhexdeeda magaalada waxaa ka socda howlgal emergency ah howlgalkaas oo ciidamada dawladdu ay ku raajoogaan amaba ay ku baacsanayaan qolooyinka nabaddu ay dhibtay waxaan u sheegaynaa marka dadka reer guriceel inay guryahooda ku nagaadaan dadka shacabka ah ee magaalada dhex jooga guryahooda inay ku ekaadaan aysan soo bixin howlgalkaasi inta uu socdo si loo kala saaro dadka nabadiidka ah iyo dadka shacabka ah oo magaalada dhexdeeda jooga waxaan rabaa baaq labaad inaan u diro qolooyinka weli ku harsan meelaha yarka ah ee farakutiriska ah ee xabadaha ka soo riday inay si nabad ah isku soo dhiibaan ciidamada dawladdana ay isku soo dhiibaan oo gacantooda ay soo galaan inta aan howlgallada kale aysa dib u bilaaban oo mahadsantiin